walbahaarka adduunyo inkastoo weligiisba ibni aadan wareersho dad waxaa ugu liita midka aan wadankiisa warba aanan u haynin waxaa kaase ka liitay isagoo webi haysta beerta uu ku waraabsho waa yeelkii inta suuqa wareego waa yeelkii abidkiisba weydiinun soconaysiyo walamaysi ku nool waayihiina dhaafa waxaan ladi weyniyo wadeecooyin isjidiyo wacdi bay ka tagaane adigoo walwalaya inuu weyne ku siiyo wehel ku arxamayo soo walaalnimo maaha waxaan taa ka wadaa iyo wowga aan darbanayo warsan baan helayaayo waxtar baa la rabaaye ninka weedha bilaasha walanteerinayo gobolkeenni wacnaa mudug waxyaha jiirkiyo wadnaheena ahayd waa ayaa u bariyo mar inay wax qabtaan bay isu soo wacayaane inagoo wada taala inaan wiishka la qaadno soo walaalnimo maaha waagii ugu dambeysay kolka laamigu wiiqmo midka gaariga weyn iyo markituga wataaba way ka weecan jireen oo ma wanaajin kareyne iyagoon warshad haysan xirfad weyne ka muuqan waxqabadkay filayeenna dowladoodii ka waayey oo waqtigoodii huraya hadday maanta wadooyin dhismahoodii wadaanba weji weeye baraare bilowgiisa wakiile haddii aynu wadaanta la waldaamina maanta soo walaalnimo maaha wadadeeda wadaagsin sida loo wajahayo xaqiiq waa ila weyde inta aan warankeenna afaynu walcalayo aynu weerar dhaqaale gudiweyne u saarno xoolo waafiyegeyno dadka hawsha wadaay waxa ay sugayaan waxtarkooda cadaan iyo wacaashooda rabaani waa inteenan banaanka ay ku waabtay dantoodii mar hadday warankoodii ahmigoodii wacnaa barqa suuqa wareen si wax loogu bilaabo waa inaynu wufuud iyo waxoogaaga dirnaayo waajib ayna saaranayninna yaan wax reeban hilibka waslaadaada nin ammaano waraabe u wakiilanayow adigaa ka warkeenin wax kastoyba ahayd baxamar weyna daysay ogaaday wadankeennu waa nidaam federaalo ruux walbaa gobolkiisa la wadaagin kistiise ninkii hoy warafkiisa shimbirtiisa la waayaa isagaa warrahnaane wadadeenna wadaagsin wadaraynu ku taagno dhibta taalla wadiiqiya rafka waynu naqaane haddii aynu wadaagsin inta ciid ku wafiifno walanboyga ku qaadno wadankeennu xaqiiqo wuu iswaabanayaayo safarkan wakhtigiisa uga waaban jiraynay welwelkiisu dhammaaye wiilka jooga bursaalax intaan waagu dilaacin xeebta wuu tegayaaye loo harkii wahsadaayo yalka rooba wataan iyo ufo waa berigii ah waabka aan ka gelayne wadadeenna wanaagsin waxtar bay sugaysaaye wadaraynu ku taagno kala baasana hareeru kala fogaa hortaydo durugsana waxaan u baxshay wadada la dhisayo oo wadaagsin sidaas baan u baxshay dadka waxa la baahan saas oo kale wada bixiyaan محمد آدم عبد الله يرادا ركب على برنا ومنين waqtigaas ratibaan bixiyay 3 jira waxaan u bixiyay wadadaas wadaagsin hareeru kala fogaa hortaydo durugsana hawlu kala baasana hareeru kala fogaa hortaydo durugsana hareeru kala fogaa hortaydo durugsana hawlu kala baasana ilaa 1500 kiiloomitir baa la dhisi karaa haddii shacabka ummadda Soomaaliyeed ay u wada istaagto inay wax qabato dhammaan waxaa loo ololeynayay sidii ay wadadaasi wax uga qabsoomi lahaayeen daawadayaal waxaynu weli dhexda kaga jirnaa barnaamijkeennii aan ugu talagalay maanta inaynu fikir ahaan ku ururino bal dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbahan gaar ahaan caasimadda labaad ee waddanka UK aragtidooda ku saabsan ka qayb qaadashada horumarka iyo dadaalada ka soconaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan wadada wadaagsin ee isku xirta xeebta Garacad iyo degmada Galdogob ee galbeedka gobolka Mudug horta run ahaantii waxa weeye guul maanta in lagu faano waxaan noqonayaa waxqabadka wadada dheer oo isku xidha Galdogob ilaa iyo Garacad wadadaas oo dhererkeedu uu yahay marka la yiraahdo Garacad ilaa iyo Gaalkacyo oo noqonayo ilaa 260 ilaa 270 kiiloomitir inta u dhaxaysa wada dheer ah ilaa iyo Gaalkacyo ilaa Galdoogobna ay noqonayaan ilaa iyo 70 kiiloomitir ay noqonayaan waa 350 ilaa 330 inta u dhaxaysa wadadaasi waxayna isku xidhaa 3 degmo degmada Galdogob
degmada Gaalkacyo oo xaruntii gobolka Mudug ah iyo degmada Jariiman run ahaantii in wadadaas wax laga qabto oo dadku deegaanku uu isku tashado waa arrin waxa weeye aad iyo aad loogu faano cid kasta oo barnaamijkaas ka qayb qaadatana waxay noqonayaan in dad adduun iyo aakhiraba uga faa'iideysta aakhirana haddii xaggii xasanaadka uga faa'iideysta iyo ajarka adduunkana xaggii waxqabadka iyo horumarka uga faa'iideysta ayay noqonayaan hadda arrintan wadada ah wadaagsin oo laga dhisayo macnaha inta u dhaxaysa Garacad iyo Galdogob waa wado runtii loo baahan yahay in gacan la siiyo ummadda Soomaaliyeedna sida aan hadda macnaha garan karno ama muxuu ahayd qofkii aqli leh uu fahmi kara ama fikirka uu ka qabo ay noqonaysaa wadadu meel mar haddii wada laga dhiso cid walba maraysa maadaama uu yahay barnaamij noocan oo kaleetooda oo يعني la rabo in laga hirgeliyo goboladaas dhaxdooda isku socodka fududeey doona bulsho badanna ka faa'iideysan doonto waxaan rajaynaa inay tahay يعني khayr iyo wanaag ka bilowday gobolka inay noqoto laguna daydo oo gobolada inta kaleetood iyo ay ku dayo doonaan ayaan rajaynaynaa insha Allah waxaana يعني anigu leeyahay in laga qayb qaato waxaan ugu baaqayaa in ay wax ay qaban karaan oo sahlan ay ka xaasidaan naftooda sababtu waxaad qaban karto markaad naftaada ka xaasido adaa is xaasiday cid kale ma aanad xaasidin marka waxaan kula talinayaa inayna wax sahlan oo noocaas oo kala oo ay qaban karaan ayna naftooda ka xaasidin cid kalena u daba fariisan ee u istaagaan oo ay isticmaalaan jeebkooda iyo caqligooda iyo aqoontooda Afrika hadda sida ay soontihiin adduunku indhahu ku haya waa wadamada hadda la rabo in la maalgeliyo East Africa in general Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadaas East Africa sida daraadeer infrastructure-ka iyo wadayaasha waa waxyaalaha fududeey kara maalgelin in lagu sameeyo wadanka sida daraadeer waxaan aad iyo aad ugu rijo weynahay aan ognahay dadka dibadda ku nool xagga Afrika khaasatan waxay rabaan wadankii inay maal gashtaan waxayna u fududeey kartaa isu socodka wadadaasuna waxay noqonaysaa bilow waliba waxaan rajaynaa wadadaasu markay dhamaato in wadayaal noocaas oo kale tooda la sameey doono dadka bulshaduna ay si gaar ah ugu soo jeesan doonaan in marka dadka deegaanka wada degan oo dhani ay u istaagaan wax weyn ma aha waa wax sahlan qof kasta oo u dhashay dadka soonahaas deganna uu ka qayb qaato waxay noqonaysaa wax aad u fudud waxaas iyo ka badanna way qaban karaan dadka u dhashay deegaamadaas haddii ay si daacad ah iyo si wada jir ah u wada howlgalaan dhinaca miyiga aad baa looga dadaalayay iyo tuulooyinka wadadu ay soo madho ama degmooyinka ay soo madho dhinaca magaalada odayaasha jooga ragga waxgaradka jooga ganacsatada joogta siyaasiyiinta joogta aqoon-yahanka jooga dhallinyarada joogta gabdhaha jooga dhammaan waxaa loo ololeynayay sidii ay waddadaasi wax uga qabsoomi lahaayeen oo maanta barnaamijkaas kulli fadhiga looga wada kici lahaa dhinaca miyiga waaba ka horreeyeen dadka magaalada jooga waayo dadka reer miyiga ah waxaa lagu qoray lacag caddaan ah waxaa lagu qoray xoolo nool qof walba oo miyi jooga waxaa lagu qoray neef ariya oo ilaa $100 ilaa $80 inta joogta u dhaxaysa isla mar ahaantaasna markii ay ku filaan weyday wuxuu hurahayay oo la weydiiyey neef geela oo ilaa $1,500 ilaa $1,300 ilaa $1,000 inta u dhaxaysa buu u hurahayay qof walba u baahan qofkii dhismaheeda ka qayb qaata ama ha uga qayb qaata xoog ama ha uga qayb qaata aqli ama ha uga qayb qaata dhaqaale isaguna ajar buu ka helayaa aan la malayn karin oo inta wadada la marayo ay dhisan tahay qof walba markuu arko wadadaas wanaageeda iyo sida loo marayo uu ducaynaya cidii wax ka qabatay wadaagsin dhismaheeda mar lix dadka hawsha gacanta ku haya waxay noo sheegeen inay qorsheynayaan inay dhisaan
dekadda Garacad oo iyadu isla xeebtaas Garacad ah ganacsatada Soomaaliyeed ma is leedahay inay iyagu ka qayb qaataan oo wadada dekadda dhistaan isla mar ahaantaana ay ganacsi ahaan uga faa'iideystaan aad iyo aad Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka bulshadu inay si aad uga qayb qaadato oo jeebkooda ay ayagu inta fagaan wax ka soo saaraan maadaama yani dawlad weyn oo hadda ma taqaana u taagan arintaas aynan jirin iyo international community aan sugayno waxa muhiim ah inaan jeebkeena ku tashano wadamada Afrika sida aad ogsoontihiin Mombasa dekada badan laga dhisayaa 2 dekedood ilaa 3 dekedood Dar es Salaam 3 dekedood waxay ku tartamayaan xagga dekada inay wanaajiyaan annagu jeebkeena inaan ka dhisto waa ku qasbannahay waana ra'yi fiican oo dad ka soo shaqeeyeen waxaan leenahay Ilaahay jisaa ka siiyo qiimaha aniga hadda ay Soomaaliya ka joogto ma aqaan kiilada sokorti laakiin qiimihii nuskeeda inuu ku helaa macquul ah haddii dekad ka dhow dekadii hore laga soo dejin jiray ay ku timaado marka waa qayb nolosha ka mid ah waa faa'iido u soo kordhaysa dadka ku nool eeriyadaas oo dhan iyo dadka waddanka gudihiisaba ku nool soonaha aan dekadu lahayn halkan magaalooyinka markaan mid Birminghamna dhalinyaro iyagun aad isu xilqaamay oo barnaamijkan wadaagsin baa isu taagay oo iyaguna si fiican intii la doono barnaamijka ugu fiicnaa aniguna aan talageliyadeeda aan siiyey baraarujin iyo wacyigelin ballaaran inay sameeyaan meel kasta oo ka mid ah adduunka barnaamijka kan waxaadna moodaa inay ku guulaysteen 100% markan meeshaas barnaamijkaas hawlu kala baasana hareeru kala foga hortaydo durugsana hawlu kala baasana hareeru kala foga hortaydo durugsana